بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كسو دوادا عشركي أفرتن إيا اللباد برنامجكي قوركي أحكانتيسا قوشا قويسكا ليبانتا قويسكا فرحادا قويسكا انتا باوغهد ليني casharkeenna waxaan maantay ka bilaabi doonaa xuquuqda ninku xaaskiisa uu ku leeyahay. waxaan 18 cashar oga soo hadalnay xuquuqda xaasku ninka ay ku lahayd. maantay waxaan ka hadli doonaa sida xuquuqdii gabadhu ay u guda lahayd ninkeeda ay ku lahayd. kayfa tuscidiina zawjaki, gabadh yahay sidee ninkaaga oga farxinaysaa, ku raali gelinaysaa xuquuqdii uu kugu lahaa oo la imaanaysaa mar haddii aad soo baratay xuquuqdii aa adigu ku lahayd. marka koobaad, nolosha guurku waa nolol shirkad ah oo ku dhisan jacayl iyo naxariis ku dhisan. labada qof mid kastoo ka mid ahna waxaa laga doonayaa inuu ku dadaalo siduu kan kale ku raali geli lahaa. haddii uu rababa isagu xuquuqdii uu lahaa qayb ka mid ah ka tanaasulee, waxaa fiican in la isku tanaasulo oo qofba qofka kale raali geliyo ee aan qofba qofka kale halkan la fariisan. aawa aniga xuquuqdaydii, aawa aniga waajibaadkaygii, wax badan aan ka soo hadalnay inaysa fiicnayn mararka la wada hadlayo in qof kastaahi uu halkan soo dhigo xuquuqduu lahaa ee la isku caburiyo leeraa xaqayga ima siidid iyo xaqayga ima siidid. xuquuqda marka la isweydiisanaya inay waqti gooniya ay noqoto. qaanuunka ama nidaamka loo dejiyey farxadda guurka waa mid aad iyo aad u muhiima, aadna u fara badan. ilaahayna uu noo jideeyey, culummaduna ay kitaabaha fiqiga ah 1/4 ama 4 meelood meel fiqiga uga hadleen. laakiin waxaa laga yaabaa gabdho fara badan inaysa garanayn iyo rag fara badan intaba. maadaama aysa garanaynna qofba qofka kale inta ku tacadiyo ku tagrifalo ay meeshaas uu qofkii ku noolaanaya farxad darro iyo walwal iyo cuqdad, ama maahane burbur uu soo degdegaya horeerka halkaas uu ku burburaya. gabadha marka walaashahoo muslimada ah, maadaama xuquuqdeedii aan ka soo hadalnay xuquuqda ninka, waa inay barato gabadha marka muslimka ah ee ayada dhan yacni diinka ilaahay ku dhaqantaahi farxad waxaa ahayn ma helayso. akhlaaqdeeda yacni ay hagaajinaysaa, dhaqankeeda ay hagaajinaysaa, dharkeeda cabsidii alla ah, cibaadadii iyo dahaaradii iyo khayrkii ayay ku dadaalaysaa. markaas ayay ninkeeda waxay u noqotaa xagga jacaylka iyo naxariista markii la eego, waxay u noqonaysaa naxariista xaggeeda hooyo kale. markii la eego xagga daacada ay adeecaysana gabadhii uu dhalay oo kale. markii la eego sida ay dacwadii iyo khayrka ugu caawinaysana walaashiis la dhalatay oo kale. markii gogashii la joogana caashiqadiisii ama xabiibadiisii. markaas ayay zawjadiisii adduunyada iyo tii aakhira intaba ay isku noqonaysaa. markaasay waxay ka fogaanaysaa wixii ninkeedu uu dhibsanayo, waxayna samaynaysaa wixii ninkeedu uu ku jeclaanayo. waxay kula kulmaysaa ayadoo dhoolla cadaynaysa, waxayna sagootinaysaa ayadoo u ducaynaysa. haddaba xuquuqda zawjka haddaan ku bilowno, qodobka ugu horeeya waxa weeye waa kan ugu muhiimsan, guriguna uu ku dhisnaa karo, nidaamka iyo kala dambeynta adduunkao dhanna uu ku dhisan yahay. waa waxa la yidhaahdo taacatu lmar'a zawjaha fi lmacruuf. gabadhu inay ninkeeda wixii wanaaga ay ku adeecdo. mar haddii aan daaco la helin iyo kala dambeyn la helin, xataa dunidu ma dhisanto. markaa eegna nidaamka caalamiga iyo dowladnimadka, waxaa jira kala dambeyn, madaxweyne iyo ku-xigeen, madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo wasiiro, wasiiradii lafteeda agaasimayaal kasii hoose, qofba qof uu kasii sareeya hoo boos u yah. waxaa nolosha ku dhisan kala dambeyn. haddii is-adeecid la waayo oo ninka iyo gabadhu ay sinmaan ee labadoodu ay challenge ku jiraan, gurigaasi ma sii jirayo. waxa ugu muhiimsan marka oo gabadha wanaagsan tilmaanta koobaad oo ay leedahay waxa weeye ninkeeduna uu ku leeyahay wujuubu taaca, inay adeecdo wixii ilaahay ka raaliya ay ku adeecdo, waxa alla ka raali yahay tabarteedana ah. haddii laakiin macaasi uu amro, waxaan alla ka raali ahayn uu amro, ama wax aysan samay karin awoodeeda ka baxsan uu amro, waxa weeye taas adeecitaan ma jirto. marka daacadii la is adeecayay quluubtii ayay isku soo jiidaa.
waxay baabi'isaa khilaafkii iyo cuqdadii baabi'isaa, waxay tirtirtaa doodii iyo dhibaatooyinkii tirtirtaa, waxay keenaysaa in labadii qof isku naxariistaan, waxay keenaysaa ninkii laftigiisu inuu dareemo xaas wanaagsan inuu haysto, markaas mas-uuliyaddii uu ka soo baxo oo ilaahay uu ku yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa. aayaddaas aan dhowr jeer soo sharaxnay inuu ka soo baxo. marka aayaddaas ilaahay wuxuu ku leeyahay fasaalixaatu qaanitaat, gabdhaha wan wanaagsan waa gabdho qaanitaada oo ilaahay adeecaya, nimankoodana adeecaya weeye. nimankooday adeecayaan, markii ay joogaanay adeecayaan, markay maqan yihiinay naftooda ilaalinayaan, xoolahoodii ilaalinayaan, gurigii ilaalinayaan, ilmihii ay ilaalinayaan. daacadu marka waa sifaadka gabadha muslimadahoo wanaagsan ugu horeysa, sifada ugu horeyso in laga hela ay tahay weeye. gabadhii marka in ay ninkeedii adeecdo, mucaasharadiisii ay hagaajiso, kalsoonidiisii ay kasbato, jacaylkiisii ay soo jiidato, dareenkiisii ay soo jiidato, waxaasoo dhan waxay ku imaan kartaa adeecidda. marba gabadhu haddii ay ninkeeda adeecdo, ayadaa waxay noqonaysaa aakhirka qofka la adeecayo. maxaa yeele gabadhu markay ninka si saxa u adeecdo oo dareenkiisa ilaaliso oo jacaylkiisa ilaaliso oo wixii lagu lahaa ay gudato, waxaa meesha ka dhalanaysa ninkii inuu jeclaado, ee asaga wixii lagu lahaa laba jibaarkood uu guto, ilaa uu gaaraba gabadhaasi wax allaala waxay ka codsato inuu soo dhigo, ee ay ayadu noqotoba qofka la adeecaya sida xaqiiqada ah. gabar yahay marka ninkaaga haddaad rabtid inaad miro ka gaartid, in aad yacni waxaad ka rabtid ka heshid, in uu kuu jilco, waxa weeye adeecidda ku dadaal oo adigu la imow, oo maaragtay ka buuxi naxariistaada, jileecaaga, danayntaada aad danaynaysid, dareenkiisa ilaalinaysid, xuquuqdiisa aad ilaalinaysid, ku dadaal. gabdho badan waa fahmayaan arrintaas, waana ku dhaqmeen, waana ku faa'iideen. gabdho fara badanna arrintaas ma fahansana, markaas ayay dagaal iyo dood iyo qajajac ku jiraan, markaasaa guriga ama burburaya ama kurba iyo walwal lagu noolaanayaa. marka daacadu waa wax muhiim ah. mar haddii uu maaragtay ninkaagu wax wanaaga ku farayo inaad adeecdid weeye, wixii ilaahay uu raalli gelinaya ee aan macaasi ahayn in aad ku adeecdid weeye. hadduu wax ku faro iyo haddii uu wax kaa reeba intaba, cid uusan raalli ka ahayn gurigiisa inaada soo gelin, gurigiisa inaada ka bixin idankiisa la-aantiisa, xoolihiisa inaada ku tasarufin idankiisa la-aantiisa, asagoon kuu ogolaan. idanka xoolaha maalanba waxna waa waxyaalihii hantidii caadiga ahayd oo muuqatay, waxyaalana waa waxyaalo yaroo iska fudud oo maaragtay qofkii miskiinka ahay oo wax ku weydiisto guriga soo hor istaagoo la siiyo iyo waxyaalo yaryar, dhib male taas. laakiin haddii qorsho xoola u baahan la samaynayo, inaad idankiisa haysatid gaar ah oo uu ku yidhi waxaa samee, ama idankiisa guud aa haysatid ee uu ku yidhi xoolahan sidaad rabtid ugu tasaruf oo wixii aad doonto ku samee. waxaa adeecidii ka mid ah gabadhii ninkeeda oo jooga inaysa soon soomin, soonka sunnada ah ama midkii qallaha ahaa ee waqtiga ballaaran haystay. lagama hadlaya ramadaankii way soomaysaa, waxay kaloo soomaysaa soon qalla ah oo lagu leeyahay waqtigiisiina ciraryoomay, oo haddii 5 beri lagugu leeyahay ramadaankii hore ah, ee ramadaankii kale uu soo dhow yaho 5 beri ay ka dhiman tahay, 5 maalmood waa soomaysa, asagoo joogaad soomi kartaa. laakiin soon sunno ah ama soonkii qallaha ahaa ee waqtigiisu uu ballaarnaa, asagoo ninkaagu joogo ma soomaysid haddaadan idan ka helin. markaasaa xadiidkii saxiixaha nabigu wuxuu ku leeyay calayhi salaatu wasalaam, laa yaxilu lilmar'ati an tasuuma wa zawjuha shaahidun ilaa biidnih. gabadha xalaal uma ahan, umana banaana inay soonto ayadoo ninkeedu joogo ilaa inuu u fasaxa ma ahane. ayadoo fasax aan ka haysan in ay soonto ma la ogola. walaa ta'dana fii beytih ilaa biidnih, walaa yaxilu laha an ta'dana fii beytihi ilaa biidnihi. gurigiisana qof uma ogolaa karta uusan raalli ka ahayn oo isaga uusan fasax ka haysan. marka arintaa inaan iska ilaalina weye. haddii ka waran ninkii magaalada uu maalinkii oo dhan jiro uu habeenkii kaliya soo hoyaadayo, ma soomi karta soonkii sunnada ahaa? maya. waxaa dhici karta maalin maalmaha ka mida inuu soo laabto oo uu kuu baahdaa dhici karta, oo hadhow soonkii saas uu kaaga jebiyo. marka haddii aad idan ka haysatid soon, fasax haddaa ka haysatid, laakiin ninka hadduu maqan yahay, wadanka uusan kula joogin, caawa iyo maanta midna uusan imaan karin, soonkaaga sunnada ah waad soomi kartaa.
axaadiidta haddaba ku boorinaysa gabadha adeecida ninka ay adeecaysa waxaa ka mid a xadiidkii uu warinaya ibnu maajah nabiga laga warinaya calayhi salaatu wasalaam ee nabigu leeyahay ma stafaada almu'minu bacda taqwa allahi khayran lahu min zawjatin saalixa. qofka muuminka alla ka cabsiga kabacdiga alla ka cabsiga kadib xaas wanaagsan wax ka fiican xaaska wanaagsan ma helayo ee haddii uu faro adeecaysa, haddii uu fiiriyo farxad gelinaysa, haddii uu dhaarto waxaas yaan la samayn yiraahda aan dhaartiisii jabinayn, haddii uu ka maqan yahay hantidiisii iyo nafteedii ilaalinaysa. marka riwaayo kalena xadiid kaleo nasaa-ina wuxuu ahaa nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ayu nisaa'i khayr, dumarka yaa ugu wanaagsan. markaasuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam alatii tasuruhu idaa nadar wa tutiicuhu idaa amar walaa tukhaalifuhu fii nafsiha wa maaliha bima yakrah. waa gabadha haddii uu ninku uu maaragta fiiriyo farxad gelinaysa, qalbi niyad wejiga wanaagsan la qaabilaysa, qurxoon faraxsan, haddii uu adeecana amrana adeecaysa, hadduu ka maqan yahayna xoolihiisa iyo nafteeda iyo maalkiisaba waxuusan ka raalli ahayn aan ugu dabamaraynayn oo aan samaynayn. marka sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam gabar ayaa u timid, markaasaa nabigu gabadhii markii dantii ay laheyd uu u oofiyo wixi ay ka rabta ay heshay, oo nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nin miyaa leedahay? markaasay tiri haa. markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidee baa ku tahay ninkaaga agtiisa? markaasa waxay ku tiri maa aaluuhu ilaa maa cajaztu canhu, wax aanan samay karin maahane wax allaala wix aan awoodo waa sameeya. markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fandurii ayna anti minhu fa inamaa huwa jannatuki wa naaruki. waxa weeye ninkaaga agtiisa sida aad ku tahay fiiri oo uu kaaga raali yahay oo aad wanaagga ugu samaynaysid, asaga ayaa naartii sababka ugu noqon kara haddii aad ku xumaatid, jannadiina sababka ugu noqon kara haddaad wanaagsanaatid. haddaba ninku haddii uu ku faro waad samaynaysaa, ku adeecaysaa, ilaa waxaasi inay yihiin waxaan alla ka raalli ahayn maahan. wax alla uusan ka raalli ahayn ee macaasiya qofna kuma adeecaysid. nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna faray in oo aan qofna lagu adeecin macaasi. laa taacata limakhluuqin fii macsiyati illaahi, ilaahay wax uusan ogolayn qof bini aadama laguma adeecayo. haddii gabadhii ninkeedii uu faro salaada inay iska dayso, haddii uu faro xijaabka inay siibto, haddii uu faro waxyaalihii xumaa inay dhegaysato, waxyaalihii xumaa inay daawato, khamradii inay cabto, sigaarkii inay cabto, jaadkii inay cunto, shiishadii inay cabto, balwadii inay barato, dad xuxun inay la saaxiibto, niman ajnabi inay dhex gasho, nin ajnabi inay salaanto, waxaasoo dhan haddii uu faro kuma adeecayso, kamana yeelayso, ilaahayna ka magan galaysa. waxaasoo dhan waxa weeye waa ay ka soo horjeesanaysaa, macaad allah ay leedahay, ilaahay ayaan ka magan gala waxaasoo dhan. marka waxay ilaahay ka raali yahay ayaa gabadhu ninka ku adeecaysaa kaliya. daacada zawjka haddaba la adeecaahi waxay faa'iido u tahay, waa daacadii ilaahay. ilaahay baa adeecaysa, maxaa yeelay asaga ayaa ku amray inaad adeecdid, marka waa laga ajar siinayaa. waxaa gabadhii muuminada laga rabaa marka mar haddii ay gurigii joogto ninkeedii ay adeecayso, waxa ay samaynaysa inay ku samaysa raalli ahaasho. mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in ninkii xaggiisa ay kaa soo qaabisho waxyaalo aad dhibsanaysid, laakiin waxaas aad dhibsanaysid haddana aad samaynaysid, waxaa ku caawinaya inaad wixii haba kugu cuslaatee farxad a ku samaydid, halkii aad kurbo iyo adoo dhibsanaysa aad samayn laheed. taas marka caafimaadkaagina waxay u dhibaysaa, karaahiyay kuu keenaysaa, adigii waa ku dhibtoonaysa, haddana wix waa aad samaysay. laakiin isku day xataa wax oo aadan ku qanacsanayn, dembi hadayta lagama hadlayo, hadday tahay wixii marba aad samaynaysid oo adiga haba ku dhibaana, si aad ilaahayna ajar uga heshid, caafimaadna naftaada u qabto, inaad adoo qanacsan samaydid isku day, marba haddii aada wixii diidayn. marka xuquuqda ninku xaaskiisa uu ku leeyahay waa xaq aad u weyn. ilaa nebigu uu yiri calayhi salaatu wasalaam haddii aan qof fari lahaa inuu qof kale u sujuudo, gabadha ayaan fari lahaa ninkeeda inay u sujuudo, laakiin qof bini aadama looma sujuudayo sidiisaba. nabigu waa dhaarto calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay gabadhu xaqa rabbigeeda ma gudanayso ilaa ay kan ninkeeda gudato, xataa waqtiga ay ugu mashquulka badan tahay, ugu yacni safarka ay ku jirto hadduu dalbado maaragtay
in aysan isu diidin ilaa heerka ay gaarto xaqii alle ma gudanayso. marka gabadhii muuminada ahay ninkaaga adeec ka dambe mar hadduusan waxaan dembi ahayn ku farayn, ninkaaga dhul u noqo, samaha kuu noqde ay yidhaahdaan, yani gogol weel u noqo, dabool ha kuu noqdo, yani laba qofoo iswaafaqsana laga wadaa. haddaad adiga qaybtaadii gudatid waafaqada aheyd, ilaahay wuxuu kaa siinayaa muwaafaqo in aad maaragtay aad iswaafaqdaan, labadiinu a ka dhalanaysa oo aad isku raali noqotaan. marka gabadha ninkeeda caasisa oo kasoo horjeesata oo la dooda oo khilaafka badanna waxa weeye xataa salaadeeda inaan la aqbalayna nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam, ithnaani laa tujaawizu salaatuhumaa ru'uusahumaa, laba qof salaadoodu hunguriga ma dhaafayso, hoos uma gudbayso, saameyn kuma yeelanayso. waxaa ka mid ah imra'atun casat zawjaha xataa tarjic, haweeney ninkeeda khilaaftay oo caasisay ilaa ay soo laabato. marka gabadha cidda xaqa ugu weyn ku laho bini aadama waa ninkeeda, sida nabigeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey caaisho ay nabiga weydiisay, yaa rasuulallahi man acdamu nnaasi xaqan cala almar'a, rasuulka ilaahayow ninka yaa ugu yani gabadha yaa xaqa ugu weyn ku leh? nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam zawjkeeda ayaa ku leh. haddaba maadaama xuquuqdaas lagugu leeyahay gabadhiyay, waxaa muhima waxyaalaha daacada tusinaya waxaa ka mid a inaadan ninkaaga furin weydiisan. mararka hadba xaalada kulaato, khilaaf yar uu dhaco, la isqabsado, gabadhii ma haboona in ninkii ay furin weydiisato. markaasuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, ayuma mra'atin sa'alat zawjaha talaaqan fii gayri ma ba's faxaraamun calayha raa'ixatu ljanna, gabar kasta oo ninkeeda furin weydiisata ayadoo wax dhibaata iyo duruuf ku keenta aysa jirin, jannada carafteeda ka xaaraan ah. hadday xalaalaysato arintaas, jannada carafteeda ma ay arkayso, waa ka xaaraan. haddii kalena dadka marka hore gala kuma jirto. haddaba dhibaato ayadoo aysa ku keenina nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fii gayri maa ba'sin yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, haddii duruufu ku keento gabadhi ninka waa dulminayaa, waa dilayaa, waa dhibayaa, xuquuqdeedii siin mahayo, aaday dhib ugu haystaa guriga, ama maaragtaye ayadiya waxay arkaysaa ninkii xuquuqdiisa inaysa gudo karin oo aysa kasoo bixi karin. dhibaato ama duruufi marka meeshaas haddii ay ka jirto, inay furin weydiisato lama diidin fii gayri maa ba'sin, ayadoo dhibaata jirin uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. nabigu ma dhihin qofku ha dulansanaado, ha iskala noolaado, yuusa ju dhihin, nabigu ma dhihin calayhi salaatu wasalaam. laakiin ayadoo wax dhibaataha ugu kalifta aysa jirin, wax yar markii la wada hadlaba inay faraqa laacdo tiraahdo halkaas madaxayga ii dhig, ama maaragtay ay iska soo damacdo tiraahdo gurigan burburinaya, waxa weeye taasi sax maahan. haddaba gabadha wanaagsan ee caqliga badan ee ahludiinka ah ee xariifada ah ee wanaagsan, waxa weeye dabeecadeeda iyo dhaqankeeda iyo akhlaaqdeeda ma bedasho. mararka qaarkood gabdhihii markay wadamo kala tagaan, qurbo kala tagaan, hore ayay iska bedelayaan. markaasay waxay maqlayaan dadka ku luuqeynaya ninkii naagtaasinan waxa weye laba baawar weeye, laba awoodood weeye, ayadoon taasiba agtooda ka jirin. ma jirto adduunka laba qofoo sinan meelay hogaamiyaan. gurigu waa nidaam iyo mas-uuliyad, labada mas-uuliyad hadday sinaanna burburaa ka yimaada. laba madaxweyne wadanay hogaamiyaan, maaragta laba madaxweynoo siman adduunkiyaysa hogaami karin. gurigii yarka ahaayo halka albaabaha haddaad tiraa waa ku sinmaynaa ka warran, maxaa imaanaya? waxaa imaanaya burbur, waxaa imaanaya in cuqdad dhacdo, waxaa imaanaya in dhibaatii kurba lagu noolaado ama la isfuro. marka qof kasta xuquuquu leeyahy ilaahay uu caddeeyey ee aan la dafiri karin. 18 xalqan uga soo sheekayna gabadha xuquuqdeeda u noqo baro, laakiin yaysa kaa dhaadhicin waa la siman yaho in la isku taagnaado oo maantao dhan la doodo oo kelimaba kelima la iskugu jawaabo oo aan la kala dambayn oo aan nidaam jirin oo aan la isfahmin oo aan la wada tashan. ninka fiican ee akhlaaqda le rag waa labo, nin hadda nolosha ka dhacsanaa iyo mid iska miskiinaho la iska hogaansado waa labo. laakiin ninka ragga ah ee reerkiisa raba inuu dhaqdo ee nidaamka lehi ma jecla naag nin kale ah. yacni almar'atu mustarjila ama mutarajila, ninka iska dhigta 12 dooda la taagan, 12 wax kasta ku qabsanaysa, wax kasta ku khilaafaysa, dooda iyo khilaafka la taagan, qof jecel ma jirto. qof jecel ma jiro ilaa mid aad adigu haddaad helaysid inaa iska wadatid adigu hogaanka u haysid, meesha arta u dhigaysid oo asaguna aan ku dhaqan karin oo markii la rabo lagu diri karo, iyo qof nolosha ka dhacay kama hadlayno. marka adduunku nidaamu ku dhisan yahay. ninkuna wuxuu jecel yahay raggaahi inuu xaaskiisa u turo u wanaagsanaado, nidaamka qaado.
ayaduna inay wadadeeda qaado. laakiin laba nin markay meesha timaado waa la ishertinaya, waa la isku dhacaya, ama burbur ama dhibaato lagu wada noolaado. farxadaada aad tegaysa, tiisaad tegaysa, tan ilmahaad tegaysa, nolosha gurigoo dhan ayaa ciriiri iyo mugdi ayay gelaysaa. marka walaalayaal yaanan iska dhaadhicin arinta ah in la siman yahay oo aan cidno xataa gaalada warkaas lihi aysan ku dhaqmayn, ee labadoodii ay meeshaas ninka gaalkaya naagtiisa mid kasta dhaqaalihiisa hore u wataa, shaahiisuu cabaya, adeegiisuu qaadanaya, laba qof oo kale ordaysa wel. adinkana nidaama ilaahay idiin sameeyey oo gooni ah oo xuquuq la isku leeyahay, qofba qofka kale xaq ku leeyahay. xuquuqa gabadhu leedahay la cadeeyey, xuquuqa ninku leeyahay la cadeeyey. marka qof kasta xuquuqdiisa inuu ka soo baxo la rabaa, maahane in aad inta wax soo dhageysatid markaad ka qaadanaysa reer galbeedka ninkii naagtu waa siman yihiin, hadda dhanka kalena ka qaada inaad adna wax xaqa lahayn. labadiinuba qof kasta uu laba qof oo darisa aad tihiin, aad noqotiin, oo aan qofna qofka kale xaq dhinacna. laakiin haddaad rabtid dhinacna leedahay ninkan intaas iyo intaas iyo intaas iyo intaas xaqan ku leeyahay, dhanka kalena aad rabtid inaad qaadatid inaad siman tihiin, taas hadda wax jiraya ma ahan. qodobkaas daacada ah intaas ayaan kusoo gabangabaynaynaa, oo waxa weeye ah gabadhu ninkeeda inay adeecdo. gabadhii wanaagsaneed oo nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam, haddii la fiiriyo farxad gelinaysa, haddii wax loo diro yeelaysa, haddii laga maqan yahay hantidii iyo guriga iyo nafteedii awlaaddii hagaajinaysa inaad tahay. xaqa labaad intaas kaas waxaan kusoo khatimaya xaqaas intaana ka bixin. gabadha ninkeeda adeecda albaabada jannada ayay midkii ay doonto ka gelaysaa, sida nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam. xadiidka nabigu wuxuu imaam axmed uu soo saaraya ku yiri calayhi salaatu wasalaam, idaa sallat ilmar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa xafidat farjaha wa ataacat zawjaha qiila laha udkhuli iljannata min ayi abwaabi iljannati shi'it. gabadhu hadday shanta salaadeed tukato, shanteeda salaadeed ay tukatay, soonkeediina waa soontay, xibinkeeda tarankana macaasi ka ilaaliso, ninkeedana adeecdo, waxaa lagu leeyahay albaabada jannada kii adoonti ka gal. allahu akbar. waayahay kuma celcelinayna xuquuqda gabadha, waa soo faahfaahina soo kala dhignayn, halkaasaa looga noqdo. hadda waxaan u gudbaynaa xaqa labaad ee ninku xaaskiisa ku leeyahay. xaqa labaad ee ninku xaaskiisa ku leeyahy waxa weye al-ikhlaas. gabadhu inay daacad tahay oo asaga ay daacad u tahay, ilaahayna daacad u tahay. kow, gabadhii waxaa laga raba horta ninkeeda inay daacad u tahay, ikhlaas, khayaano iyo lugooyo iyo iska dawareeg iyo kala faa'iidaysa aysa jirin. dhanka kalena ikhlaaska gabadha muuminadaahu anfacaya. gabadha muuminada gurigeedii markay ka shaqaynayso, waxaan ognahay gabdhaha hawl aan rag qaban karin ee farihii ka badatay inay qabtaan, subaxdii say usoo istaagaan, habeenkii saqdhaxa inay dhacayaan. ilaahay ha ka wada raali noqdo gabdhaheenna. marka gabadha noocaasa hawshaas aan la koobi karin wadata, diinteennu ay sheegtay ninkii jihaadka ku jiray inay kasii ajar badan tahay hadday hawshaas si fiican u qabato. waxaa laga rabaa ikhlaas inay la timaado. hawshaan ay qabanayso faraha badan, cuntay karinaysa, gurigay hagaajinaysa, ilmahii hagaajinaysa, dadkii intaasoo ku noosheeyay samaynaysa, inay ilaahay dartiisa u samayso. ilaahay dartiisa markay u samayso, ninkeeda hadduu yahay hawshaas nin mudan oo oga mahad celinaya oo u og waxay qabanayso, iyo hadduu yahay ninaa ogeyn, labadaba ilaahay agtiisa ajarkiisa ka helaysaa. alla agtiisa ayay ajarkiisa ka helaysaa, rabbi agtiisay ka dhargeysaa. allahu akbar. marka waxaa ka baxaya meesha, marba hadday ilaahay dartiisa wixii u samaynayso, ninka ha mudnaado oo nin fiican ha noqdo, ama yuusan mudnaan, in khilaaf meesha yimaado, in cuqdadi meesha timaado, in dhibaata meesha timaado, waxay og tahay waxeeda ninku hadduu ku qadariyo ugu mahad celiyana hadda waa u mahad celiyey. haddii uusan u mahad celinna, alla agtiisa inay waxeedu u yaalaan, ee aysa ka lumayn, ee ilaahay ka ajar siinaya, bal markaas ay kasii faa'iido badan tahay ayay ogaanaysaa. aan fiirino qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala ee uu mukhlisiinta uga hadlay, dadka ilaahay u barax tiray cibaadada, dar ilaahay wax u sameeya, gabdhaha mukhlisaadka ah iyo ragga mukhlisiintaaba. ilaahay wuxuu leeyahay, wayuطcimuuna aطacaama calaa xubihi miskiina wayatiima waasiira. u fiirso, dadkaasi cuntadii ayay bixinayaan, oo ay maaragta ayagoo jecelo u baahan ayay agoon iyo maaragtay miskiinkii iyo kii madax furashada loo haysta intaba oo maxbuuska ahaa
ay ku bixinayaan ayaga u baahan maxayna u bixinayaan inamaa nutcimukum liwajhi illaah ilaahay dartiisaan idin quudinayna waxaan idin samaynayna yacni camal kasta oo aad samaydaad ilaahay dartiis aad u samayn kartaa laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura adinka idinkama rabno inaad noo abaal celisaan iyo inaad waa mahadsantihiin tiraahdaan labadaba oo waxa weeye waxaan ilaahay dartiisa qaban gabadhii marka hadday gurigeeda hawsha ay ka qabanayso tirada badan ilaahay dartiis u samayda liwajhillaah ee aysan cidna abaal oga rabin ilaahay agtiisa ka helaysa maxay galaysaa marka hadhow dadka ilaahay uu leeyahay waxay yiraahdeen inna nakhaafu min rabbina yawman cabuusan qamtariira fawaqaahum allahu shara dhalika alyawm walaqaahum nadratan wa surura dadkaas oo ilaahay ka cabsanaya cabsida alla waxaan u samaynaya ilaahayna uu sharta maalinka qiyaamo ka ilaalinayo ilaahay farxadda iyo jannada iyo barwaaqada uu la kulminaya gelaysa marka gabadha muuminada ahay si waxaagaas xooggaas maalinkii aad samaynayso malaayiinta hawl ah aysa kaaga qasaarin ilaahay dartiis u samee ninkaagu hadduu yahay nin u qalmana falilaahi alxamdu min qablu wa min bacd waa uu kuu mahad celinaya ilahay agtiisana waa ka helaysaa hadduu yahay mid doqon oo fahansaneen shaqada aad haysidna ilaahay agtiisa ka helaysaa waxba kaama qasaarayaan xaqa u dambeeya casharkeennan ee aan kusoo qatimayna ee muhimka ah waxa weeye ee ninku xaaskiisa ku leeyahay attacaawunu cala albiri waataqwa gabadhu ninkeeda inay ku gacan siiso taqwadii alle wanaagii khayrkii inay ugu kaalmayso hadduu shaqo khayraba ku jiro inay ku gacan siiso ayaa laga rabaa waxaa laga rabaa labadii isqabe marka inay isku kaashadaan wixii ilaahay uu ka raalli ahaa khayrkii iyo wanaaggii inay isku kaashadaan sida ilaahay subxaanahu watacaala uu noo leeyahay watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan isku kaashada taqwadii alla kacabsigii birigii acmaashii wanaagsaneed samafalkii khayrkii waxa aad samaynayseen ha isku kaashanane xumaantii dulmigii macaasidii cadowtinimadkii reerihiioo la dumiyo bulshadiioo la dulmiyo qaraabadiioo la gooyo ilmihiioo la fasaadiyo adinkoo macaasi isku raaca ha isku kaashanina camalka wanaagsan marka qofka aakhira iyo adduunba waa uu anfacaya waxaa xaqiiqo ah gabadha muuminadda ah guryaha in ay kala kulmi karto imtixaan dhibaatooyin ay soo wajihi karaan qofka noloshiisu mar kastaba farxad kuma dhisnaato marar badana culays imaanayaho laqad khalaqna alinsaana fii kabad yacni bini aadamka in ilaahay uu ku abuuray culays iyo mashaakil iyo maaragtay duruufo kala duwan ayaa ilaahay sheegayaa marka maadaama duruufahaas iyo culaysahaas aysan dhammaanayn waxaa la rabaa oo kurbadii kaa qaadaya iyo culaysyadii ilaahay khayrkiisoo samaydid marka maanta meeshan qodob muhimha casharkeena raba inaan kusoo gabangabayo qodobka muhimka si fiican oona u dareentid wey qodobkaas wuxuu quseeyaa gabadhii owlaad la-aani hayso wuxuu quseeyaa wiilkii owlaad la-aani hayso ilma raadisa wuxuu quseeyaa gabadhii ninka qabaahi uu ku adkaado dabeicadiisa iyo qallafsanaantii ka badato ku dhibtootay wuxuu quseeyaa ninkii xaasku ay ku adkaato ku qallafsanaato duruuf guriga ay haysato u fiirso xalkeediya ilaahay subxaanahu watacaala noo cadaynaya daawadeediya qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala noogu sheegaya u fiirso owlaad la-aanaa ku haysa ama lamaanihiya kugu adag daawadan ilaahay uu kuu sheegaya qaado ku dhaqan a ogaatid sida u heshid adoo qalbigaagu nadiifiya ilaahay wuxuu ka hadlayaa nabiyullaahi zakariya calayhi salaam asagoo nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay la hadlayo wuxuu leeyahay wazakariya id naadaa rabbahu rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayru lwaarihiin nabiyullaahi maxamedow waxaad xustaa oo ka sheekaysaa nabiyullaahi zakariya markii uu rabbigiis u yeeray oo rabbigiis uu baryey gacnaha uu u taagay ee uu yidhi ilaahayow ha iga tegin anigoo kaligay ah wa anta khayru lwaarihiin cid wax dhaxasha adiga ugu khayr badan ilaahayow koonkan adiga iska leh adiga u haraya adiga kulligiis leh anigoo kaligaya ilaahu ha iga tegin ilaahu awlaad isii waxa khayrka diinkan iyo dacwadan iyo barwaaqadan cid iga dhaxasha ee sii wada oo waxa weye min ahli yacquub ah nebi yacquub aalkiisi ilaahu rabbiyow isii owlaad ilaahay u siiyo nebi zakariya waa yeelu ahaa xaaskiisi waa yeeli ahayd ma dhalays ahayd ilmo ma dhalin markaasuu baryadaas ilaahay bari kow marka laba maadaa meeshaan taalay nebi zakariyo ilmo aan haysano ilaahay ilmo ka baryay kow xaaskiisoon ilmo aan dhalayn labo saddex waxaa kaloo meesha ku jira
xaaskiisa tafaasiirta qayb ka mida waxay leeyihiin dabeecaddeeda adkeed oo waa dabeecad xumeed. labadaasba isku soo qabo, waxa weeye ilma la-aantii iyo lamaanihii oo dabeecad adaga ku jira. ilaahay muxuu leeyay markuu nabiyullaahi zakariya sidaas u baryay, u fiirso meeshana qusaysa taas weeye iyo waxa nabiyullaahi zakariya uu ku muto ilaahay sheegay. ilaahay wuxuu leeyahay fastajabnaa lah wawahabnaa lahu yaxya. ilaahay wuxuu leeyahay nabiyullaahi zakariya baryihiisii waa ajiibnay, waa aqbalnay, waxaana u hibaynoo siinay yaxye, nabiyullaahi yaxyan siin. okay, wa aslaxnaa lahu zawjah, xaaskiisiina waa u hagaajinay. haddii ay aysa dhalayno madhalays ahayd, ilmaan siinay, madhalays kiyaan ka bixinoo mid wax dhashaan ka dhignay. dhanka kalena hadday dabeecad xumeed waa u hagaajinoo dabeecaddeediiyaan u hagaajinay. tafaasiirta qayb ka mid sida mareen waa u hagaajin dabeecaddeedii, dabeecaddii qallafsaneedaan ka bedelnay, ilma dhalidiiyaan ka bedelno, la-aantiiaan ka dhigno, ma dhasho meesha ka ahayd aan mid wax dhalaysa ka dhigin. u fiirso maxay ku muteen marka in dacwada la ajiibo, ilaahay owlaaddii uu siiyo, xaaskii ilma ay qof dhalaysan noqoto waa yeelka ahayd, inay dabeecaddii qalafsaneed ay ka bedelanto. maxay ku muteen? waa meeshaas meesha muhiimka ah ee qof kasta ee ilma raadinaya, qof kasta oo lamaanuhu ku adag yahay ay rabaan ay tahay inay ka faa'iidaystaan, oo noo furan, oo aan ambiyada ku gooni ahayn, annaga dhan noo furan. ilaahay wuxuu leeyahy waxay ku muteen nebi zakariya iyo reerkiisa arrintaas, innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat. waxay u degdegi jireen, waxay ahayn dad u degdega khayraadka, alla kacabsiga, sadaqada, qaraabo xiriiriska, wanaagga. maxaa lagaa raba adiga marka haddaad rabtid ilaahay inuu awlaad ku siiyo? salaadii u degdeg, soonka u degdeg, salaatuleylka u degdeg, sadaqada u degdeg, qaraabo xiriiriska u degdeg, agoontii caawinta u degdeg, masaakinta caawinteeda u degdeg. waxa weye labadii iskhilaafsaneed iyo reerihii dhibaatadu ka dhexaydo xaliday u degdeg, labadii isdiidaneedood xalisay u degdeg, wanaagga u degdeg, khayrkao dhan u degdeg, qur-aanka ku degdeg, salliga nabiga ku degdeg, istikfaarta ku degdeg, toobadkeenka, ducada, tasbiixda, khayrka ku degdeg. innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat. khayraadka dad ku degdegay ahayn. kow, wayadcuunanaa ragaban warahaba, waana na caabudi jireen nebi zakariya iyo reerkiisu ayagoo jecel waxa agteenna yaalla oo jannada iyo ilaahay raalli ahaashihiisa iyo khayrka alle ee aan kala go-ayn, ayagoo raba oo doonaya oo jecelay na caabudayeen. warahaban haddana ayagoo ka cabsanaya ciqaabka weyn oo alle agtiisa yaalla qofkii alle amarkiisa khilaafa, ayagoo ka cabsanaya ayay alle ayna caabudayeenuu le ilaahay. wa kaanuu lanaa khaashiciin, waxayna ahayn dad noo khushuuca oo aan kibir lahayn, noo hogaansama, na adeeca, noo barax tira cibaadada, mukhlisiin ah, daacad ah, ilaahay ku xiran. u fiirso saddexda qodob. u fiirso khayrkoy u degdegaan, caabudidda ilaahay ay caabudaan ayagoo ka cabsanaya naartiisa, jannadiisa iyo wanaagga agtiisa yaalana raba, ilaahayoo ku xirmaan oo khaashicin u yihiin. walaalka muumina ama walaasha muuminadaho ilma rabtay, walaalka xaasku ku adagtaho ku qalafsan tahayow, walaasha ninku ku qalafsan yahay, daawadii wataas. u degdeg taqwada alle iyo daacadiisa iyo khayrkiisa u degdeg. kow, u degdeg caabudaadii alle iyo baryihiisa iyo waxaweye ku xirankiisa, u degdeg ilaahay ina u barax tirtid. habeenkii saqdhex gacnaha taag. wadadaas nabiyullaahi zakariya maray mar, ilaahay waa ku ajiibaya, owlaad la-aantii kaa bixinaya, lamaanihii kugu adkaayo kaa bixinaya. allahu akbar. waa daawo ilaahay uuna siiyey ee aan ku gooni ahayn nabiyullaahi zakariya calayhi salaam. inaad isbaartid, dhakhtar aadid ma diidaysa waxaasoo dhan, laakiin adigoo isbaaraya inaad ilaahayna subxaanahu watacaala ku xirantid aa la raba. laakiin ka waran haddii aad salaadii ka tegaysid oo soonkii ka tegaysid oo khalqiga dulminaysid, haddana rabta inaad ilmo heshid, haddana rabta baaritaan isku wadid, aad ordaysid, rabtid lamaanaha inaad la challenge garayda, la iskhilaafo, qofba wuxuu raba sameeyo, gurigii dhibaato iyo macsiya dembi ka jiraan, haddana la rabo qof kasta qof kale inuu u faraxsanaado. ha sugin. ilaahay wuxuu leeyahay qofka kuwa muuminiinta oo caabudayo aniga igu xiran ee khayraadka iyo wanaagga u degdega, adduunka intay joogaan farxadaan ku noolaynaynaa, aakhirana janna ka horeysa.
kurbala'aan iyo wanaag guriga ilaahay lagu caabudo lagu xirmaahay farxad aa imaanaysa xataa ilmaha haddii ilaahay uusan kugu talagelin ilaa waa soo sheegnay ina markasta ilmuhu khayr ahayne gurigaas farxad iyo habinimadaa ka jiraya man camila saalixan qofkii camalka wanaagsan sameeya min dakarin aw untha oo rag iyo dumar intaba ah wa huwa mu'min asagoo ilaahay aaminsanoo mu'mina falanuxyiyanahu xayaatan tayiba nolol wanaagsan aan adduunyada ku noolanayna kurbo iyo walwal iyo walbahaar ismaba arkaan walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun waxaana ku abaal marinaynaa ajarkoodii oo wixii ugu fiicnaa waxa ay shaqaysteen hadda wixii kalena waaba kasii owleysan waa ku jiraan wixii waaweynaayo ugu fiicnaa lagama inkiraya xataa dadka adduunyada markay joogaan waxa laga yaabaa haddaad shaqo u qabateed waxyaalaha muhiimka inay kuu diidaan laakiin waxay ku siiyaan laakiin ilahi wuxuu leeyahy kuwa ugu fiicnaaya xataa siinayna marka insha allahu tacaala ilaahay aan ku xiranno haddaan rabno kurbooyinka inaan ka baxno reerkuna ha is adeeceen qofba qofka kale xuquuqdiisa ha u istaago casharkan intaasaan kusoo koobayna wabilahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu